waa saddex xalxiraale ma awoodaa inaad xalliso daawadaha qiimaha badanow. jawaab waad u heli kartaa halxiraalaha koowaad. sidoo kale way dhici kartaa inaad jawaab u hesho halxiraalaha labaad, balse uma malaynayo inaad ka jawaabi doonto ama markaasi aad ku guulaysan doonto halxiraalaha saddexaad. aan ka bilowno halxiraalaha koowaad. qolkii xirnaa. axmed waxa uu ku xaniban yahay gudaha qolkan. qolka gudihiisa waxaa ku jira miis iyo kursi, wuxuuna leeyahay 2 albaab. saqafka kore ee guriga waxa uu leeyahay duleel yar oo 15 sentimitir la-eg. albaabka koowaad gadaashiisa waxaa taagan libaax bahal ah, gaajaysan oo aan maalmo wax cunto ah cunin. albaabka labaad gadaashiisa waxaa ku yaala god dhalo ka samaysan oo loogu talagalay tamarta qorraxda. isla marka aad furto albaabkaas labaad, waxaa suuragala in kulaylka daran uu kuu soo galo isla markiina aad dhimato. haddaba sidee buu axmed uga bixi doonaa qolka? ra'yigaaga waa maxay xalka markaasi ay tahay inuu axmed sameeyo? jooji muuqaalka oo jawaabta bixi kuna qor qaybta hoose ee faallooyinka. jawaabtu waxay tahay axmed wuxuu sugayaa inta habeen laga gaarayo, mugdigana wuxuu ka fahmayaa duleelka ku yaala saqafka kore ee qolka. intaa kadibna waxa uu ka baxayaa albaabkii labaad ee gadaashiisa uu ku yaalay godka dhalada ka samaysan, sababtoo ah qorraxdu markay dhacda kadib heerkulka ama kulaylka darani hoos ayuu u dhacayaa. jawaabtaadu ma ahayd mid sax ah, ma iswaafaqin jawaabtan. inoogu sheeg qaybta hoose ee faallooyinka ama jawaabtii aad bixisay ribalay u soo gal. aanu gudubno halxiraalaha labaad. saaxiibbada ayaa challenge kula galay ama kugu xujaystay inaad gashid guri waa hore laga guuray. aan si kale u dhahno guri ay degan yihiin reer aakhiraad. waad aqbashay taxadigii ama challenge-gii, gurigii ayaadna gashay. waxaad gurigii ku aragtay waddo dheer oo kuu wadaysa guri gudcur ah ama mugdi ah, gurigaas oo leh 3 albaab. waad cabsatay amaad dhimataabaad istiri, waad jaraysay, waad argagaxday, waad cabsatay sida inay naftuba jirkaaga ka baxayso. waxaad isku dayday inaad laabato, sidoo kalena albaabka aad ka baxdo, laakiin si la yaab leh albaabkii waaba qafulan yahay, albaabkii waaba xiran yahay. waad qaylisay icaawiya icaawiya, laakiin cid ku maqashay ama kuu timid ma jirin. qolku waa mugdi. waxaad isku dayday inaad raadiso halkii laga shidi jiray nalka. si kadisa waxaad heshay halkii laga shidayay iftiinka ama nalka, laakiin nasiib xumo korontaba ma jirto. gurigu waa bilaa koronto. hadda ma haysatid xulasho kale ilaa inaad 3 albaab midkood gasho mooyee. albaabka koowaad gadaashiisa waxaa ku yaala god weyn, haddaad ku dhex dhacdana waad dhimanaysaa. albaabka labaad waxaa ka dambeeya kursiga korontada ee markaasi haddii aad tagto halkaasi ay koronto ku qabanayso ood ku dhimanayso. yacni halkaa waxaa yaala kursiga korontada, marka haddaad taabato calaatuul waad dhimanaysaa. albaabka saddexaadna waxaa ka dambeeya barkad weyn oo ay ka buuxdo aashito. haddii aad istiraa mar barkadaas oo dhex qaad kadibna ka gudub, waxaa ku dili doonta ama ku dhibaatayn doonta aashitada, waadna dhimanaysaa. bal ra'yigaaga waa maxay xalku? sidee baad qolkaa uga bixi doontaa? jooji muuqaalka oo aad qaybta commentiska jawaabtaada bixi. jawaabtu waxay tahay waa inaad doorataa
albaabka uu yaallo kursiga korontada. sababtuna waxay tahay waxaad isku dayday wax yar ka hor inaad shiddo iftiinka oo markaana waxaad ogaatay inaanay koronto jirin. ma hilmaamtay midaasi? hadda aanu gudubno halxiraalaha saddexaad. sida ii muuqata waxaan isleeyahay kuma guulaysan doontid, laakiin waa laga yaabaa inaad ka jawaabto, sababtoo ah dadka qaar lama yaraysan karo, lamana yasi karo maskaxdooda aadka u cajiibka ah, aadkana u afka badan. labadan shay ee meesha kaaga muuqda midna waa buluug, midna waa guduud. aabbaha dhalay Cumar waa nin sayniska si fiican u yaqaana, waana dhakhtar ikhtiraacay sidoo kalena hal abuuray ama hindisay kaniini qofka haddii uu cuno uu helayo awood la yaab leh, awooddii caadiga ahayd ee la yaqaanay mid ka baxsan. haddaba shaygaa uu sameeyey ee qofka awoodda siinayaa wuxuu ka kooban yahay 2 xabbo oo kaniini ah, mid buluug ah iyo mid guduud ah. haddii aad 2 xabbo hal mar cunto waxaad isku beddelaysaa qof leh awood aan xuduud lahayn, sida Superman oo kale. haddaba odaygii wiilkiisii waxa uu siiyey 2 xabbo oo guduudan iyo 2 xabbo oo buluug ah, yacni 4 xabbo ayuu siiyey, isagoo filanaya wax kasta inay cunugiisa ku dhici karaan. aabbuhu wuxuu ku baraarujiyey cunugiisa in cunitaanka 2 xabbadood oo kaniiniga ah, yacni 2 xabbadood oo guduud ah iyo 2 xabbadood oo markaasi buluug ah, cunitaankooda uu sababayo geeri. bimacnaa wuxuu ka dhigan yahay in ay waajib tahay inuu cuno 1 xabbo oo guduudan iyo 1 xabbo oo buluug ah, lagamana badin karo. haddii laga badiyana geeri ayaa markaasi la filanayaa. Cumar kaniiniyadii aabbihii siiyey waxa uu geliyey jeebkiisa oo ku ritay, wuxuuna ka baxay laabkii isagoo aaday dhanka guriga. intii uu xaafadda u soo socday waxaa heshay oo qabatay koox gaangis ah, koox tuuga ah. indhaha inta ka xireen ayay geliyeen qol mugdi ah. isla xaaladaas uu Cumar ku jiray wuxuu soo xasuustay kaniiniyadii uu aabbihii siiyey, 2 guduudneed 2 ay buluug ahayd. wuu soo saaray oo jeebkiisu ka soo bixiyey, laakiin wuxuu ogaaday inaanu kala saari karin keebaa ah kii buluugga ahaa, keebaase ah kii markaasi guduudka ahaa. indhahana waa uu ka xiran yahay. xitaa haddii uu indhaha iska furo oo is yiraahdo kaniiniyada eeg, waxba kama faa'iidi doono, waayo qolkuba wuxuu ahaa gudcur mugdi ah oo aan wax iftiina lahayn. haddaba maxaad u malaynaysaa in xalku yahay? waa maxay habka uu ku cuni karo xabbadda guduudan iyo xabbadda buluugga ah, kuwaas oo ka mid ah 4 xabbo oo aabbihii hore u soo siiyey, welibana uu ku hayo gacantiisa iyagoo isku dhex darsan oo aana lagu kala fahmi karin ilaa iftiin in la helo mooyaane? maxaad u malaynaysaa xalku inuu noqonayo? jooji muuqaalka oo aad qaybta hoose ee faallooyinka kuna qor jawaabta. jawaabtu waxa ay tahay waa mid iska fudud. kaniini kasta jab ayuu ka qaadanayaa, sidaasi awgeed natiijadu waxay noqonaysaa inuu cunay 1 xabbo oo guduudan iyo 1 xabbo oo buluug ah. waxaan rajaynayaa inaad fiidiyowga ka heshay. halxiraalayaashan xalkooda hore ma u heshay? ha hilmaamin inaad ku soo biirto kanaalka, sidoo kalena muuqaalka aad like saarto, shargarayso oo la wadaagto asxaabtaada si ay kula xaliyaan halxiraalayaashan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir. haddii ay tahay markii kuugu horeysana subscribe dheh oo ka mid noqo asxaabta halkan ku xiran. fii amaanillah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.